kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda Soomaaliya qodobada ugu waaweyn warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya jeyte oo maxaas uga hormaray xasan sheekh maxamuud ciidan iyo hub badan la galay magaalada wararkii ugu dambeeyay xaaladda maxaas iyo ciidamo ku sii qulqulaya ayaan ku eegi doonaa warkeenan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran aynu ka horeyne cali jeyti cismaan ayaa xasan sheekh maxamuud uga hormaray magaalada maxaas ee gobolka hiiraan iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan safarka cali jeyti uu ku tagay magaaladaasi hogaamiyaha Hiiraan State ahaana gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan ayaa maanta ka degay magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan halkaas oo si weyn ay ugu soo dhaweeyeen ciidamada iyo sidoo kale waxgaradka deegaanka waxayna arintan u muuqataa in Cali Jeyti Cismaan uu yahay hogaamiyaha beesha Xawaadle marka loo eego sida rigliga ah ee magaaladaas loogu soo dhaweeyay soo dhaweynta Cali Jeyti ee degmada Maxaas taariikh ayuu ku qoray waa sida marka aad u istaagto rabitaanka dadka laakiin marka daba dhelif tahay sida dabageed ilaahay umada ayuu ku nacsiyaa ayuu yiri mid kamid ah dadka sida weyn u soo dhaweeyay Cali Jeyti oo soo dhaweyntiisa ka hadlay sababta Cali Jeyti uu u tagay magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa lagu sheegay safarka madaxweynaha jamhuuriyadda uu soo yahay magaaladaasi oo la sheegay inuu ka soo guurayo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug uuna halkaa u tagayo hogaaminta dagaalka iyo in frontline-ka la tago oo dagaalka toos loo hogaamiyo Cali Jeyti Cismaan ayaa ka soo kicitimay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan safar qaatay saacado badan ayuuna ku tagay magaaladaasi waxaana soo dhaweyn kal iyo laaba loogu sameeyay gudaha magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan halkaas oo ah magaalada laga howlgali doono inta gacanta lagu dhigayo galguduud deegaanada ay ka joogaan kooxda qawaariijta ee Al-Shabaab ku darso xisaabta hogaamiyaha gobolka Hiiraan ee beesha Xawaadle Cali Jeyti ayaa la sheegay in ciidankii ugu tirada badnaa abid uu la galay magaaladaasi kadib markii la sheegay in shaki iyo qawaaf weyn uu ka qaaday ciidamada kala duwan ee xoogga dalka iyo kuwa koofiya xasan sheekh maxamuud ee ku sii qulqulaya magaaladaasi xogtu waxay tilmaamayaan in ku dhawaad 20 gaadiidka dagaalka oo gaashaaman ah iyo baabuurta aan qaraxyada karin uu madaxweyne Cali Jeyti la tagay magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan ayaa kaga soo hormaray magaaladaas hoggaanka Hirshabeelle dabageed iyo Cali Gulaawe wuxuuna si cad u amray in magaaladaas aysan iman karin wax ka tirsan Hirshabeelle haba ugu horeeyaan oo kuwa gobolka hadda ku sugan oo Beledweyne jooga waxaana wararku ay sheegayaan in xubnaha kale Hirshabeelle ay tagi doonaan magaaladaasi marka madaxweynaha jamhuuriyadda uu ka dego Maxaas halkaasna wadahadal toos oo kula furo Cali Jeyti Cismaan oo isagu isku magacaabay hoggaanka madaxweynaha Hiiraan State ciidamadan tirada badan ee uu wato Cali Jeyti ayaa gabi ahaantood u dhashay beelweynta Xawaadle waana ciidamadii deegaanadaas ka xoreeyay kooxda Al-Shabaab waxayna u muuqataa in Cali Jeyti Cismaan maanta calankiisu bubanayo lana laayahay siyaasiyiintii kale ee Hiiraan ku sugnayd oo ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle dabageed oo ay ahayd inuu isagu magaalada uga sii hormar madaxweynaha halkaasna ugu soo dhaweeyo Cali Jeyti Cismaan ayaana xasan sheekh maxamuud maalmo ka hor ay wada hadleen waxaana la filayaa in madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud saacadaha soo aadan uu ka dego magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan halkaas oo ay ka bilaaban doonaan wada hadallada rasmi ahaan loo dhameystiri doono ee xasan sheekh maxamuud iyo Cali Jeyti oo uu dhex galay ugaaska beesha Xawaadle oo madaxweynuhu uu soo dhex maray Cali Jeyti ayaa loo magacaabayaa xilka wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo wararku ay sheegayaan in wasiir madaxan furan hawada lagu cuni rabo maalmaha soo aadan booskaasna uu tagi doono Cali Jeyti Cismaan oo isagu si weyn ugu riyaaqeen ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanka hab hogaamintiisa dagaalka iyo in uu yahay nin ay ka go'an tahay la dagaalanka shabaab iyo in gebi ahaan dalkan laga saaro
gudoomiyaha hore ee Hiiraan Cali Jeete ayaa sidoo kale waxaa la sheegayaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu kala hadli doono sida ugu macquulsan ee dagaalka looga adkaan karo kooxda shabaab iyo sidoo kale muhiimadda in la saaro ciidamada deegaanka oo dawladdu markii hore guulaha ugu waaweyn ka gaartay. ugu dambeyntiina wararkii ugu dambeeyay xaaladda Maxaas iyo ciidamo ku sii qulqulaya magaaladaasi. ciidamo isugu jira kuwa xooga dalka iyo xooga deegaanka ayaa ku qulqulaya degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. ciidamadan oo ay horkacayaan mas'uuliyiin kala duwan oo deegaanka ayaa ku qulqulaya degmadaasi iyadoo laga jawaabayo baaqi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ahaa in dadka reer Hiiraan ay kaalin mugle ka qaataan howlgalka dib u xoreynta dalka. wararka ayaa sheegaya in ciidamo uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Dabageed ay galinkii dambe ee Khamiistii halkaas ay gaareen inkastoo markii dambe ay dib uga soo laabteen. ciidamo kale oo wato gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin Sufrow ayaa iyana la soo sheegayaa in ay ku hoydeen magaaladaasi oo markii Cali Jeete meesha uu tagay ka soo carareen. wariyaasha ayaa soo sheegaya in xubno kale oo ku dhow Cali Jeete Cismaan gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan iyo ciidamo ay horkacayaan ay qayb ka yihiin mas'uuliyiinta gaaray degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. magaalada Beledweyne ayaa xudun u ah abaabulka ciidamada faraha badan ee gaaraya degmada Maxaas halkaas oo la filayo inuu gaaro madaxweynaha dawladda federaalka. dhinaca kale mas'uuliyiin isugu jira heer federaal iyo heer dawlad goboleed oo galmudug ah oo ka ambaxay magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel ayaa la sheegayaa in sidoo kale ay gaareen degmadaasi. Maxaas ayaa mar kale lagu diyaarinayaa ciidan xoog leh oo la doonayo in ay dhanka waqooyi ka weeraraan magaalada Ceelbuur iyo deegaanada kale ee hoostaga kadib markii uu guuldareysay qorshihii hore ee lagu xaqiijinayay amniga deegaanada iyo tuulooyinka ku teesan magaaladaasi. ciidanka xoogga dalka iyo xoogga deegaanka oo 25 bishii Agost la wareegay gacan ku inta magaalada Ceelbuur ayaa maalmo kadib soo baneeyay magaaladaasi ka gadaal markii ciidamadii jihooyinka bari iyo koonfureed kaga sii siqayay magaaladaas aanay xaqiijin amniga dhulkii la doonayay inay qabtaan. kala shaki ciidanka dhexdiisa ah oo markii horeba jiray ayaa si rasmi ah u soo ifbaxay kadib weerarkii xoogana ay shabaabku sabtidii ku galeen deegaanka Coosweyne ee gobolka Galguduud. ciidamada ayaa wixii weerarkaas ka dambeeyay dib uga soo gurtay degmooyin iyo deegaano dhaca Galmudug oo kalsii horeysay laga saaray kooxda maleeshiyada shabaab. madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku hanjabay in la joogo xilligii la xatmi lahaa kuwa awoodda ciidanka ee la siiyay ku tagrifalahi iyo kuwa ka dambeeyay dhibaatada ciidanka loo geystay. saaxiibayaal wanaga inta wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka tan iyo kulan dambe nabadgelyo.